السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إيه ورمسيتهين مفيعنتهين حرجينا إنا في عنتهين دمانتين أنا جنوا في عنها يسيدو كلا الحمد لله. هلا سودا واذو انت هوري إلي جوجدو حالي ومهد سنتهين إلهي هايدين شرفو دادكو عصوبة نوصو بيرنو حالي هاي سودا واذا maanta rootinkana meeshaan uu ka bilaabanayaa waxaan rajeynayaa ilaa dhamaadka inaan nala joogdaan biidnillah. xilligan waa subaxdii, adiga xilligan waa 12 meeshaana waxaan soo karsanaynaa quraac. meeshaana waxaan soo qastay canjeero, aniga canjeerada subaxii baan qastaa, wax yaroo shurbad yaroo isku dardar ahaan kusoo daraa iyo burka, ukun yar, fixiso, caano. waxaan ka dhigaa canjeero yaroo waxtar leh. marka 30 daqiiqo kadib adiga ama 40 daqiiqo kadibna waan soo dubtaa. marka haddadan way soo faxday, meeshaan soo dubaya. halkaasna waxaa ii soo saaran shaaheeni. marka waa kana ama badnin saaka canjeerada waan yareeyay maadaama dadka qaar ay dhahaan canjeero ma rabno. pancake yaraan soo dubay laakiin ma soo duubin maadaama waqtiga igu yaraa. marka meeshaan hadda waxaan fiirinayaa shaahi, hayl iyo wax yaraan kusoo dardaray. canjeeradeenina waa noo gabagabo. marka midii u dambeysaan hadda soo saareynaa sidaan quruxda badan inoogu soo baxday. ma u badneen baydaran ba 4 xabee ahayd. shaahina markaan cabaar joogo waa soo fiirineynaa. hadda wax yaraa u haray. canjeeradina wataa waaba soo dhameynay alxamdulillaah. marka hala soo dhawaado, waxaan rajeynaa ilaa dhamaadka inay la joogdaan. shaahina wuu soo karay, waan kasoo dejiyey. birta sidoo kale ayadana waan kasoo qaadaya marka xabada u dambeysay kasoo qaado insha allah. meeshaana yaanyo yaroon hadaayay intaan sugayay inay intuu burka ii faxaayo baan yaanyo iyo basal meeshaan iyo daaniyo yaraan isku soo kariyey. waxaan lahaa waqtigii uu kaa dhumin hadhow. meeshaana waxaan rabaa inaan kasoo tuuro shakshuuka yaroo cheese leh. marka yaanyada markaasaan diyaar u tahay waxaan kusoo darayaa babrika ama barbarooniga shiidan oo wax yar ah, kuma soo badinayo. wax yaroo gaduud iyo wax yaroo macaan oo carafa inuu siiyaan rabaa. marka hadda sidaan waa diyaar. waxaan sameynaynaa ukun 3 xabaan soo qaatay halkaas soo dhigday. halan meeshaan ukunteeni ugu soo daraya. maasha allah quraacdan quraac heer sare ah waaye. markii sida intii shakshuukada loo kariyo cheese-ka lagu daro ilmaha hataa aad ay u jecel yihiin. marka hala tijaabiyo, wayna nafaqo badan tahay. cheese iyo ukun isku geey waaye, borotiinkeeda heer sare waaye. marka hadda waa kana markay cabaar joogdo wax yaraan soo fiirinayaa. marka haddadan waxaan arkay inay soo yara dhadhowdahay. marka halkaasaan midida ka gelinaya maadaama ay weli gudaha ka karin, degdegna aan qabay. marka waxaan sameynayaa sidaasaan usoo kala firaarinaya gudaha si ay dhaqso uga soo karto. dabkan wuu u gaabsan yahay si yaanyada inay kaa gubato yaanyada lama rabo, maadaama waxaa la rabaa inay si tartiiba isugula soo karaan. marka haddadan markaan soo yara daboolay had diyaar waayo. mozzarella cheese-keeni aan kusoo dareynaa. qayb walba ukunta ay taalay ama ay ku firaarsan tahaan saas ugu soo shubeynaa. hala soo tijaabiyo quraacdan insha allah. markaysaan diyaar u tahay waxaan sameynayaa waan isku soo huurinayaa cabaar. markay isku soo huurto siday kusoo baxdaan isla arkeynaa insha allah. hadda waa kana wixii dhan waa kusoo dhameeyey. daboolkeedan dhab kusoo siinayaa. waxyar kadibna waaba kana maasha allah sidaan quruxda badan ay kusoo baxday. hadda waa kana anigoo soo qaadayo rabo siday kusoo baxday inaa idin tuso. allaahuma baarik. marka sidaanay ahayd saaka quraacdeeni. kadib meeshaana waxaan soo galay qolka ilmaha. dhar yaroo ii yaalay baa waxaan rabaa inaan gadaal ka soo qaaday balakoonka inaan soo laalaabo. qolkan inaan iska soo hagaajiso isugu dhexdaadsan yahay waa aragtaan. markii la quraacdaa meeshaan wixii alaabay guriga yaalay wixii oo dhan meel kasta lagu daadiyey. marka waxaan rabaa dharkan bitartiib intaan usoo dhameeyo inaan qolkana soo hagaajiyo insha allah. roobaana da-ay xilligan adiga waa subax 5 saac subaxnimo camal. qabowga adduunka jiraan ku yiri. daaqadana waa yara furanay maadaama hadii qolku maanta dhan guriga uuna xirnaan karin wax la saaran yahay uu dabaq yahay. waa ku qasbantahay inaa subax walba daaqada furto ama qabow ha jiro ama roob hadoo ay ku taalaaba inuu hawo cusub guriga soo gasho ee fresh ah. marka waa kana hadda sidaan kusoo wadeynaa dharkeeni. markaan soo dhameyno insha allah waa isla arkeynaa. marka waxana qaarna ma qalalin oo xariga u daayay. qaarkan islahaa laab qoyan waayo ayagana way yara qalaleen. ayagana waan soo qaaday albaabihii meelahaasaan saaray si dharka cusub oo wasaq u yaala ayagana loo dhaqo oo boos loogu baneeyo.
marka meeshaan waqtiga markii la gaaro dharka inay qalalaan way adag tahay, marka waa inaa u xeeladeysatid oo xeelad u keensatid. marka waxaan albaabka lagu soo waray, wixii qoyanaana waa la daayay, wixii kalena waa kuwaana ayagana waa lasoo wada aruuriyay. waaba kana dharka markaan la laabayo qaaraaba waxay ka dhaceen badalowga, hadhowle in ka daba tagaan meeshiina isaga jira. marka waa kana hadda waa soo dhameeyay, waxa uma soo harin go-yaal ayagana aan soo qaadan jiro raba ayagana inaan la laabo, laakiin kuma soo darin meeshaan. go-yaasha ayagana waan la laabay, wixii feero u baahnaana insha Allah feeradooda la gelin doonaa. marka waa kana hadda qaanadaan raba inaan kusoo goro dharka ilmaha, wixii baati ahaana meeshii laga leeyahay la geeyo, wixii fanaanada ah wixii surwaale ah kala qayb si ay kugu fududaadaan. fanaanadaha meel iska geli, surwaalaha meel iska geli, saakooyinka meel iska geli, adigana hadhow qaanada dharka kaama halaabayaan. marka hadhow wax raadsanaysidna waxay ku tahay howl fududeys. marka waa kana hadda qolka sidaan u weeg kadib meeshaan qolka hadda waan soo hagaajiyay alxamdulillah, sidaan kusoo baxay. meeshaana luubaanteena kusoo shidanay, hadda roobkii wuu yar istaagay, laakiin weli cirka mugdi uma muujid beenay maan xadiitay maasha Allah. kadib meeshaan waxaan soo galay jikadii, meeshaan waxaan rabaa inaan qada soo diyaariyo. halkaana waxaan kusoo darsaday, waxaan kusoo shubay yaanyo iyo basal, kadib waxaan kusoo daray wixii caraf ahaa daaniyo, kadib waxaan kusoo darayaa soya sauce markasta cuntada kaali iska aragay ka dhigdaa dhadhan aad u macaan u sameynaysaa. marka hadda sidaan isugu soo qaraacnay, markay sidaan diyaar u tahay waxaan kusoo dareynaa hilibkii aan gooni usoo shiilay. ani hilib digaaga ama ari ha ahaado ama malaay, waxaa jeclay markaan cunto ku dhex karinayo isku karis ah inaan gooni usoo shiilo suu dhadhankeeda uga tagin. kadib waxaan kaloo meeshaan kusoo daray yaanyo shishiid ayadana kusoo daray, waa isku soo qaleeyay. markay hadda sidaan diyaar u noqoto maxaan sameynaynaa, waxaan rabaa inaan kusoo darsado basta macaroni ayadana soo qaadanaya. meeshaan basta macaroni kusoo shubaya. markay saan diyaar u tahay waa isku soo walaaqayna insha Allah. waxaan rabaa inaan isku soo qaleeyo sida bariiska la isugu qaleeyo kale. ani markaan basta macaroni karsanayo waa isku soo qaleeyaa, kadib waa soo huuriyay. hadda waa kana sidaan ay kusoo baxday. markay soo kartay waxaan rabaa inaan kusoo daro cheese. anaga wax kasta oo cunayaan biyaha ayaan ku darsan cheese inaan ku darsanaa ku siganayna aan ku yiri cheese anaga ma iska daba hareeno. marka waa kana hadda cheese-kii cuntada kusoo daray waa isku soo huurinaya maasha Allah. kadib waxay kusoo baxaysaa aan ku yiri kaali iska arag. hadda cheese-kan waa midka burger-ka iyo waxaas loo isticmaalo, laakiin basta macaroni xataa wuu ku macaan yahay. kadib meeshaan cabitaan soo shiitay, cabitaankan waa cambe kaliya insha Allah next time idin soo gelin doona sida uu sameeyay. waxaan ka sameeyay heavy cream, caano, condensed milk, adduun oo dhan aan ku daray sidaas uu kusoo baxay milk shake u maleysaabo. kadib meeshaan waxaan soo gaday jikada, intaan weelashii wax iska dhaqinaa rabaa ayadana inaan keegayga iska sii kariyo. meeshaan chocolate cake kan soo qastay, weelkan kusoo shubtay, ovenkan waxaan usoo shitay hoos markuu kasoo yara karo oo haddana kor iyo hoos waxaan u shideynaa 180 degree. marka intuu keega fridge ku jiro ovenka waxaan rabaa meesha inaan chocolate soo sameystaan aan keeg ku darsan lahaa. caanahan aan kusoo darsanayaa, caanahan markaan kusoo darsado gasaca haaf ay ugu jiro, haafkaas oo dhan waxaan rabaa inaan kusoo daro saas ay u yar culus yihiin maasha Allah. markaan saan caanaha ugu soo shubto oo kulli kusoo shubo waxaan kaloo soo qaadanaynaa warangada way adkaysaa waxaa ku darsanaysid. marka maadaama aan chocolate ka rabno oo rabno inuu noo adkaado waa in aan kusoo darno. waa isku soo walaaqaya. marka maadaama wax ay budo yihiin waxaan rabaa si fiican inay isku soo dhexgalaan ay kaala iska arag noqdaan. markay hadda saan diyaar u tahay waxaan kaloo soo qaadanayaa cocoa powder soo qaadanayaa, waa kusoo darayaa xoogaa badan oo fiican aan rabaa inaan kusoo daro. markaan saas ugu soo daro asagana waa isku soo walaaqaya. cocoa powder marka wax qoyaan oo dareere ah ku dartid waqti ay qaadanay inay is dhex gasho, maanta dhan waa inaa si fiican u walaaqdid. ani hadda markaan saan yeelay cabaar markaan joogaba kaamirada soo daminayaa, laakiin waxaan ku iri waqti ay qaadanay inay is dhex gasho wax kasta oo lagu daro waa shaqo dheer. marka hadda waa kana sidaan isugu soo qaraacay si fiican isku soo dhexgelinaya. markuu si fiican isku soo dhexgalo arkay inuu wax budo banaanka taagnayn oo qalalan oo kulli wada qoyay si fiican isku soo garay yaa waxaan suubinayaa. hadda waa kana sidaan ku soo baxay exactly sidaan rabay. kadib waxaan kaloo soo qaadanayaa caanaha macaan maal dhahaa caanaha macaanka condensed milk soo qaadanayaa.
xoogaa fiican kusoo daraa. Keega aan ovenka geliyeen wax sonkor oo dhan kuma darin, waa ukun iyo baking powder iyo waxaa waaye heel yar iyo caano aan kusoo daray iyo bur hal bakeeri haaf marka maadaama ay ilmo cunayaan waxaan rabaa inaan asagana sonkor u yeelin. kan aan karinayana condensed milkana xoogaa fiican aan ku daray. caani hadaa isticmaalay bilowga ahna ayagana way yar macaan yihiin. khalaas intaas ku filan, macaan meel fog waa quman iyo waxaas kama baqaysid oo hadaa hal mar cunaysidna kaal iska arag waayo. anaga wiigi hal mar waa in gurigan wax macaan laga kariyo. marka waa kana hadadan diyaar waaye. sidaan markuu noqdo isku soo wadaaqa dabkan saaraya waa u gaabinaya suu kusoo baxo waa isla arki doonaa biidnillaah. marka hadadan waa diyaar si fiican weli isku sii dhexgelinaya. waxaan leeyahay isdhexgalo wax banaanka yaalo inaa aragtid ma ahan. hadda marka waa diyaar, dabkan soo saareynaa. keegeenina weli ovenku noogu jiraa. marka waa kana hadda keegeen ovenka waa kasoo bixinay. sidaan quruxda badan uu kusoo baxay maasha Allah. xilligan adiga waa 9 saac meelahaas. waxaan rabaa in 10 saac casri ahaan loo cuno insha Allah. sidaan kusoo baxay marka waxaan soo qaadanayaa baaquliyaashaas markaan soo qaato waa soo burburinayaa sida caadadeena ahayd. waxaanoo saxan baa insha Allah kusoo wada guri doonaa. mid kasta waxaan sameynayaa waa soo burburinayaa. markaan baaquliga ku wada gurana qaadaan soo qaadanayaa waa ku wada simayaa. markuu isla wada sinno baa arkeena markaas wixii kale aan ku dari lahayn insha Allah. marka waa kana hadda sidaan kusoo wadnaa. xabad u horeeya intusaaya sidaan usoo burburinayo. saas inaa usoo burburisid waayo oo kulligood aad ka dhigdid inaa si fiican usoo burburisid. marka waa kana hadadan diyaar waayo. kulligood waa kuwaana anigoo hadda sida usoo diyaariyey. kadib waa kana chocolatekeena maasha Allah sidaan kusoo baxay lagama sheekeyn karo. waaba chocolate caadi macaanka kaaga daran. markaan saa usoo diyaarino waxaan sameynayaa rooba bilowda hadda. waxaan sameynayaa baaquliga oo dhan aan soo qaadanayaa. baaquli kastaan kusoo shubayaa. maasha Allah lagama sheekeyn karo sidaas quruxda badan uu kusoo baxay. marka ani xabadkayga fridge-kan gelinayo laakiin dadkan kale ilmaha kooda fridge-ka ma gelinayo. sidaas ku siin doona insha Allah. keegan uu soo qaboobay oo banaanka ku soo qaboobay. chocolate-kana sidoo kale fridge-ka ma gelin, banaanka ka soo qaboobay maasha Allah. marka sidaan uu kusoo baxay. hadda waa kana anagoo jikadeena iska soo hagaajinay. cashadeyda xataa waan soo karsaday laakiin in ma soo duubin meeshaan waqtigaana jikadii ugu dambeysa. mar dambe ma rabo inaan kusoo laabto. keegeena waa kana sidaan kusoo baxay. luubaan soo shitay. roobka iyo luubaanta waxaan ku dhahay isku soo baxay maasha Allah. marka sidaana isku ognahay. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fii amaanillah. bye bye.